حسن شيخ محمود oo hogaaminayo wasiiro xildhibaano odayaal iyo wafdigiisa oo balaaran waxaan ku soo dhaweynay magaalada madaxda Kismaayo madaxweynaha wuxuu joogi doonaa muddo 3 iyo 2 maalmood ah wuxuu soo boqday maamul goboleedka Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay idinkiis asagoo horkacayo ujeedada uu yimidna ay tahay la dagaalanka qolooyinkan argagixisada ah ee khawaarijta in laga xoreeyo wadanka Soomaaliya sida aad la socotaanba maalmihii dhaweyto dowlad goboleedka Jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Islaam Madoobe in aan qaadnay dagaal duulaan ah aan ku qaadnay qolooyinkan khawaarijta ah ay dawladuna qabsatay meel bartilmaameed aad muhiim u ahaa Janay Cabdalla madaxweynaha insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa inuu taageerab nagu siiyo iyo xaaladaha siyaasadeed ee ku xeeran maamul goboleedka Jubbaland sida uu soo tihiinba maamul goboleedka Jubbaland sidii loo aasaasay ilaa iyo maanta dadka reer Jubbaland ayagoo wada socda ayaa dadka qaar waxay tabanayeen dhibaatooyin iyo waxyaabo badan hase ahaatee dawladda Jubbaland markasta iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxay fidisay in ay markastaba gogol u fidiso walaalaheed wax ka tabanayo waxaan rajaynaynaa sida madaxweynihii markii horeba go'aankiisa iyo mowqifkiisa uu cadaa oo ahaa in maamul goboleedka Jubbaland uu yahay mid maamul goboleedka Jubbaland uu yahay hal midaas ayaanu ka filaynaa madaxweynaha in uu talaabaqaadkaas uu horkaco oo hormuud ka yahay asagoo garab iyo gaashaan u ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo golihiisa wasiirada waxaan leenahay markasta iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaada ku soo dhawaada magaalada madaxeedka Jubbaland Kismaayo waxaan insha Allah taala hadaanu nahay hoggaanka golaha wasiirada inaan markasta si waafi ah oo hagar la'aan oo markasta aan rabno inaan ku soo dhaweyno inaan istaagno soo dhawaada insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inta aad joogtaan in ay ahaato maalmo wanaagsan maalin qurux badan bulshada waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo bulshada Jubbaland oo hogaaminayo golaha wasiirada xildhibaanada iyo haweenka iyo dhaqanka oo maanta salaadii subax ilaa iyo wafdiga uu ka yimaado ay ka soo baxaan garoonka u taagna inay soo dhaweeyaan madaxweynaheedu waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inaan iraahdo waa mahadsantihiin la shukra cala alwaajib hambal iyo shaqadii wanaagsaneed iyo soo dhaweyntii wanaagsaneed aad ku soo dhaweyseen marxabadii aad tusteen madaxweynaha federaalka aad iyo aad u mahadsantihiin